aroortii hore dadka Soomaalida waxay u dabaaldegayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo fadhigii ugu dambeeyay oo ay ka yeeshay xaaladda Soomaaliya xalay ku meel mariyay in ciidamadii Itoobiya howlgalka cusub ee Soomaaliya ka bilaaban doono sanadka 2025 aysan qayb ka ahayn dalka Soomaaliyana ay ka bixi doonaan hore dawladda Soomaaliya ayaa noogu sheegtay laakiin hadda war soo baxay wuxuu warinayaa in Itoobiya aysan bixi doonin oo ay dalka sii joogi doonto sidoo kalena howlgalka go'aanka ugu dambeeyay ee dawladda Soomaaliya leedahay sida uu shaaciyay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ninka lagu magacaabo Xuseen Sheekh qoraal oo soo dhigay bartiisa Twitter ayaa markii la akhriyo waxa uu ku sheegayaa Soomaaliya in iyadu leedahay go'aanka ugu dambeeya howlgalka inta wadan ee ka mid noqon karta isagu difaacayay ama ka soo horjeeday hadalkii safiir ku-xigeenka Soomaaliya ee qaramada midoobay xalay oo ka sheegay Maxamed Raabi kaasi oo ahaa Itoobiya inaysan howlgalkan qayb ka ahaan doonin 12 bil ee la soo dhaafay iyadoo la eegay dhacdooyinkii ay dalka ka sameeyeen waxaan akhrinaynaa nuxurka qoraalkiisa oo luqadda Ingiriiska ku qornaa iyo waqtiga uu ku soo beegmay intaba waxa uu leeyahay dawladda Soomaaliya waxay leedahay sharciyad ay go'aan uga gaarto dalalka ka qayb galaya howlgalka cusub ee dalka ka bilaaban doona ee ATMIS lagu bedelayo AUSOMna lagu gaaray wuxuu leeyahay dhawaan go'aan ayaa imaan doono oo lagu dhawaaqi doona wuxuu kale leeyahay iyadoo la waafajinayo mudnaanta uu leeyahay qarankeena ama mudnaanta uu go'aankaas u leeyahay dalkeena iyo wuxuu kale leeyahay si ambaqaadida heshiiskii Ankara oo ah mid aad u xooggan warkaas markii la macneeyo waxa weeye Itoobiya way noo joogaysaa meel aadi mayso heshiiskii Ankara wax la waafajin doona go'aanka ugu dambeeya inta dal ee ka mid noqonaysa howlgalka ciidamada cusub ee Soomaaliya ka howlgali doonana waxa iskale dawladda Soomaaliya u leeyahay laakiin Maxamed Raabi oo ah safiir ku-xigeenka Soomaaliya ee qaramada midoobay xal wuxuu sheegay Itoobiya inaysan ka mid noqon doonin 12 dal ay waa 12 kun oo ciidamo ah ay ka shaqeyn doonaan ciidamada Itoobiya meelaha ay baneynayaan ay tagi doonaan ciidamo ka socda wadanka Uganda sidoo kale qayb kama ahan howlgalka cusub ee Soomaaliya ka bilaaban doona wadamadii la filayay ama la hadlaayay inay ka mid noqon doonaan sida Masar iyo Eritrea ilaa hadda waxa la ogyahay waa Djibouti iyo sidoo kale Burundi Kenya iyo Uganda Itoobiya meesha ka baxday sida xal laga sheegay shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay safiir ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Raabi oo sheegay laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ninka lagu magacaabo Xuseen Sheekh wuxuu leeyahay dalka Soomaaliya go'aankiisa dawladda Soomaaliya iskale sharciyadna ayada u haysato inta dal ee ka mid noqonaysana ayada go'aanka ka gaari doonto taasoo muujinaysa Itoobiya inaysan wali Soomaaliya ka qoosanin Soomaaliyana aysan wali Itoobiya ka qoosanin Itoobiya dad badan ayaa u dabaaldegay inaysan ka mid noqonin howlgalka cusub ee Soomaaliya kadib 20 sano oo ay dalkan joogtay dhibaatooyin badan oo xoog leh ay geysatay dad badan oo Soomaaliyeedna ay dishay kuwii ugu dambeeyay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ka tirsanayeen oo toddobaadkii hore lagu dilay degmada Doolo ee gobolka Gado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu agtahay inuu ahmiyad gaar ah siinayo asiga iyo dawladdiisaba joogitaanka Itoobiya iyo Itoobiya oo ayadana isku dayaysa inay xoog ku muqooniso Soomaaliya cadaadis ay saarto si ay danaheeda u gaarto mugdi badan ayaa wali ku jira heshiiskii lagu gaaray Ankara xaalad dad badan ayaa farxay waxay u haysteen warkaas oo Maxamed Raabi inuu afka Soomaaliya ku hadlay dawladda Soomaaliya wakiil ka yahay maadaama safiir ku-xigeenka Soomaaliya ee qaramada midoobay oo ahaa isagana oo matalay markaas wax dambe oo ka dambeeyay aysan jirin oo safiir oo go'aan gaari karin iyadoo aan madaxtooyadii dalka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ogeyn waxaana soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya laakiin la taliyaha amniga ayaa labadoodii ka soo horjeestay wuxuu leeyahay go'aanka ugu dambeeya Soomaaliya iskale dhawaana go'aan maqli doonta nooc noqon doona go'aankaas lama oga laakiin dadka oo darasa arrimaha siyaasadda dadka xoogaalka ah arrimaha ciidamada ku jira waxay leeyihiin Itoobiya meel uma socoto waa ay joogtaa sida xogta lagu helay dawladda Soomaaliya fasaxday laakiin ma si sharci ku joogi doontaa mise si sharci darra ay ku joogi doontaa sida hadda Doolo oo kale haddii ay si sharci ku joogto xataa haddii joogistoodii ay dhib ahayd oo la diidanaa haddii si sharci ay ku joogto waxay leedahay xiriir qabtay leedahay laakiin haddii si sharci ku joogin oo wadanka iska sii joogto waa dhibaato dalka Soomaaliya haysato joogitaankooda dhan waa dhibaato dadka Soomaaliyeedna Itoobiya waxay u arkaan halis madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ana sheegay in Itoobiya halis ku tahay dalkan al-shabaab iyo argagixisina ayadu ka daran tahay
dowladda iyo dadka Soomaaliyeedna Ethiopia aysan marna siin doonin fursad ay howlgalka cusub uga mid noqoto dadka u darasa arrimaha siyaasadda sidoo kale waxay qabaan Ethiopia inay sii joogto wadankan iyo hadalka ninka marka la eego inay muujinayso inay jiri doonto shuruudo iyo gorgorta cusub oo dowladda Soomaaliya gali doonto oo Ethiopia howlgalkan ayba dhici karto inay uga sii mid noqoto iyadoo shuruudaha Soomaaliya loo buuxinayo wararkaas ayaa ka cusub arrimaha Soomaaliya iyo Ethiopia wali dowladda Ethiopia ay dhankeeda wax war kama soo bixin laakiin xalay dhul gariir oo kale aad bay uga naxeen warkaas safiirka Ethiopia ee UN ka ku sugnaana waa uu isdifaacay dalkiisu difaacay waxa uu sheegay Ethiopia hadday meesha ka baxaan shaqo imaan doonaan dalka Soomaaliya halis ku jiro Ethiopia la'aanteed aysan ciidanka Soomaaliya guulaysan karin al-shabaab wadanka ila wareegi karaan wax kasta oo ay sabab uga dhigi karaan inay wadanka sii joogaan ayuu sidoo kale halkaas ka sheegay isagoo ku dooday in ay Ethiopia hadday wadankaasi ka baxdo ama Soomaaliya ay ka baxdo ay arrimaha la soo waday oo malaayiinta lacagta ay qaramada midoobay iyo international community uga baxa Soomaaliya ayagana ay fashil ku soo dhamaan doonaan oo Ethiopia ay tahay wadanka hadda Soomaaliya inay sii joogto oo dowladda ka jirto oo al-shabaab laga xigsaday in ayada kaliya ka shaqeyso safiirka Soomaaliya oo ku xigeenka ahaa oo halkaas joogay ayaa si kul ugu jawaab wuxuu sheegay in Soomaaliya ciidan leedahay Ethiopia hadday baxdana shabaab imaan karin dadka Soomaaliya isku filayn waxa soo dhalaa waxa soo gabagabay la taliya amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ninka lagu magacaabo Xuseen Sheekh wixii warar ku soo kordhay waxaan ku soo gudbin doonaa wararkan iyo barnaamijyada dambe adigana aragtida qaybta safaalada noo warab muuqaalkan si shirgaray aad iyo aad u maasanta Ethiopia waxay kula tahay haddii la qaato oo Soomaaliya sida hadda qoraalka ku jirtaba Ethiopia ay sii joogto maxay Soomaaliya ku dambeyn kartaa aragtida qaybta aad u maasanta dagaalada sokeeye oo dalka ka jira iyo dhibaatada ay ku hayaan iyo dhiigga muslimka oo daadanaya iyo sida doqonnimada ay wax u socdaan aad iyo aad aan uga xumahay waa ka tacsiyeynaa dadka dhintay dadka dhaawaca ah kuwa dhintay allaha u naxariisto kuwa dhaawacana allaha caafiyo maanta dhiig Soomaaliyeed in la daadiya maalin ay banaaneedna ma jirin maantana ma banaana berina ma banaana maalin ay fiicantaana ma jirin waana khasaaro qofka wax geysta laftigiisa oo uusan ogeyn oo uu geystay oo naftiisa u geystay maxaa yeelay adduunka aakhira waa la isweydiinaa qofku waa muslim qofkaa disho dhiiggiisa waa ku sugaa khasaaraha koobaad wuxuu soo gaarayaa qofka wax dilay marka wiilka la dilay hooyada gablamaysa aabbaha wiil waaye waxaas oo dhan xanuunkooda inaan dareennaa nagala rabaa dagaalada sokeeye dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo dadka waxgaradka arrintaas inay u istaagaan waxa ka imaana waa wada naqaanaa agoonnimo iyo dhibaata ka imaanaysa ilaahu laga fogaado meeshii dhiig muslim lagu daadiyo barakada ka tagaysa dhibaata ka imaanaysa in la joojiyaa loo baahan yahay gaar ahaan waxaan rabaa dhacdo ka dhacday shabeellada dhexe askar lagu laayay meesha inaan si gaar ah uga tacsiyeeyo aad iyo aad aan uga xunnahay wax aad iyo aad u xunay ahayd waa inay meeshaas ku joogsataa waana inaysan horseedin dhiig kaloo daata oo halkaas lagu joojiya tirada ma hubo laakiin 20 goobood wax ka badan ayaa laga bilaabo Zayla ilaa meesha ugu dambaysa dagaal ka socda dhiig ku daadana dadka Soomaaliyeed arrintaas arrin laga naxwa arrin fiican ma aha waxa la adeegsanayana toorey ma aha waran ma aha seef ma aha bistoolo ma aha waa hub culus waa hub automatic marka dadkii baahnaay oo aan isbitaalka haysan oo aan waxbarashada haysan ee haddana isdilayso mushkilad ma waxaasoo dhan waxay ka imaanayaan oo mas'uul ka ah fashilka siyaasadda hadday dadka rajo la'aan ku dhacdo oo hortooda mugdi noqoto inay isdilaan ay imaanayso marka dagaalada sokeeye in la joojiyo dalkaana loo turo dadkuna isu turaan ciddii madaxana ay u turto u naxdo u naxariisato ayaa loo baahan yahay amaano waaye mas'uuliyadda maanta la isweydiina beriyaa la isweydiinaa amaama allahi subxaanahu watacaala la isweydiina qofkii dhinta qofkii dhaawacma qofkii dayacma qofkii dhibaato ku dhacdo kulli mas'uuliyad waa marka waxaan rabnaa dhammaanteen mas'uuliyaddaas inaan u diyaar garowno ku fikirno xalkeeda ka fikirno dadka Soomaaliyeed ee maanta kala irdhoobay
ee qof la arkaba meel madaxa hoos u jeedinayo midnimadooda in laga shaqeeyaa loo baahan yahay midnimo la-aan wax la gaari karaa ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay qur'aankaa noo sheegay waa aragnay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu